والد waxaan ku jirnaa ilmuhu intaan 7 sano gaarin qaybta saddexaad baan ka hadlaynaa qaybta saddexaad waa maxay waxa tartankugu la jira codadka banaanka jira waa codad wax burburinka wuxuu noqon karaa celebrity mid heesa wuxuu noqon karaa mid ay video games la ciyaaraan wuxuu noqon karaa saaxiib khariba haddii marka aadan horay u maalgashanin ilmahan qalbigooda intaan 7 gaarin 7 markay gaaraan they choose who to obey marka waxay raadinayaan cidday adeeci lahayn ciddaasi waxay noqon kartaa stranger cidaani garanin waxay noqon kartaa celebrity mid TV-ga ka arkeen wuxuu noqon karaa friend saaxiib markaa burburin kara waayo marxaladii loogu talagalay inaad qalbigooda maal gashato ood attachment la samaysato ood isku talaalantaan ood identity ku beerto ood qayimka iyo value ku beerto oo safety adiga ay kugu dareemaan waa dayacday marka maxaa hadda dhacaya waxaa dhacaya 7 sano wixii ka dambeeya ilmahaasi waxay ku mashquuli just to compare wixii horay u maalgashaday in ay kala doortaan ma celebrity-gan raacaa mise celebrity-gaasaan raacaa adiga cidina kuguma xisaabtamayso mid ogo waalid marka marxaladda iyada ah ilmaha haddii bay'adda banaanka ay kaaga soko marto oo iyada ay ku talaalmaan oo 7 sano markay gaaraan ilmahaasu noqdo mid adigu aadan maal gashanin oo bay'adda banaanku ay maal gashatay waxaa adkaada waalidoo nasiib darro ilmahaas inaad bedasho ilmuhu intuunan 7 sano gaarin qayb ka noqo noloshooda jacayl ku beer wada sheekaysi la yeelo la ciyaar saaxiib la noqo sidoo cali bin abi talib radiyallahu anhu wa ardaahu inoo sheegay allah awlaadina badbaadiyo والسلام عليكم.